السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يقولان كله يدقلدين أن كلهين مريجة يوتيوب فيسبوك اسمع السيد فلان تدخل عصب تهاي channel كوسودو سبسكرايب له كم بلالكم فرو فيديو قلنا لقرأ فيسبوك نرجع صراحة وحين كل حكيرنا قضبديني برامجيني مقالديني برارجينتا برها بالشدة خاصة لها سدقار كلو استعماله aynu kaga hadlaynay isku baraarujinaynay waxaynu ka hadalnay muuqaalkan kii horreysay guud aynu hadalayo oo aynu maxay ahayd waxyaabahaas oo dhan u baahan in lagu baraarujinsanaado kan ma waxaan isku taagi doonaa qodobo yar oo kooban oo bal midhiya laba ka odhan karno barnaamijka waynu ku wada jirnaa dhammaantiin ba inta ugu badan waa mid wax soo geliya iyo mid fiirsanaya ama mid daawanaya waxyaabaha la soo geliyay labadaas aynu isugu jirnaa mid wax soo gelinaya oo wuxuu gelinayo baadhaya oo isagoo laftiisa ku dhex jira oo bal waxaan udeeyay meesha keenayo oo dadka la hor imanayo iska soo baadhayo soo shaandhaynaya iyo mid daawanaya oo maxay toolay ku daawanaya ee wax faa'iido u leh iyo kii aan faa'iido u lahayn iyo kii u baahan in laga hadlo ee toosin u baahan iyo kii in la horumariyo oo dhiirigelin u baahan intaba aynu ku arkayno barnaamijyada marka waxyaabaha u baahan in laga hadlo ama la baraarujiyo waxa kamid ah number 1 ama qodobka koobaad waxaynu ogaanaynaa ama aynu ku baraarugsanaynaa oo qof kasta oo baraha bulshada wax soo gelin waad ku baraarugsanataa ama faale ka dhiibanayo oo maxay toole ka hadlayowba waxaad ku hadlayso markaad banaanka joogtay ee saaxiibada iyo mujtamaca iyo waalidkaaga iyo dadka aad ku dhex jirto aad ku hadlayso ee maxay toole ay leedahay iska shaandhaynaysa tahay waxna inaad ku hadasho waxna inaad iska ilaaliso waxna inaad maxay toole tidhaahdo waxna aad odhanin iyo tan aad ka leedahay kawarada horteeda ee baraha bulshada aad soo gelinayso inay isku mid tahay qodobka koowaad waxa laga yaabaa qofku markuu banaanka joogo waxaanu dadka kula dhiiran haynin ama qofkan aanu ku odhan karaynin hortiisa aanu ku odhan karaynin ama qofkan saanu caayin ama wax uga sheegin cirdigiisa iyo wanaagiisa iyo sharaftiisa inuu markuu kabaradan hor joogo ee wax duubaya ee baraha bulshada gelinayo uga hadlayo si ka duwan sidaa markan uu dibadda joogo oo dadka la sheekaysanayo mujtamaca ku dhex jiro wuxuu iska ilaalinayo oo iska dhowrayo inaanu iska dhowrin ma laga yaabo markuu halkan joogo marka qodobkaasi waa qodobka ugu weyn ee u baahan inaan mar kasta ku baraarugsanaadno waxa aad ka duubayso kawarada horteeda ee aad gelinayso baraha bulshada iyo waxa marka mujtamaca iyo nolosha kale caadiga aad ku dhex jirto aad ku hadlayso inay isku mid yihiin oo sidaad markaa u sariiganayso aad waxyaabo qaar iskaga ilaalinayso inaad iskaga ilaaliso markaan aad baraha bulshada ku dhex jirtano waa qodobkeena koowaad ee baraarujinta aadka u weyn weliba u baahan waayo waxaad moodaa qofka in lagu yidhi markaad baraha bulshada ku dhex jirta ee aad comment qorayso faalla ka bixinayso ama wax duubayso ee kawarada ku hor taalo saa doonto oo hadal waxa doonta dheh cid ku qaban mayso macfi iyo masaamix bay ka yihiin in la yiri baad moodaa oo wuxuu doono iskaga hadlaya sidoo doono qof u fatahaya taasna waa mid aan meeshii leeyahay keenan qanaanayno qodobka weyn ogaana dhamaantiin baan ku baraarugsanaano ka wax gelinaya iyo ka duubaya iyo ka maxay ahayd toolay ka faaloonaya inteenuba inaynu ku baraarugsanaano qodob baraarugsiisa leh qodobka kale aan isku taagay waxay tahay xagga family marka la eego noloshooda barefadka khaaska ah ee gurigooda iyo gubashooda iyo dhaqankooda iyo noloshooda ah inaan la faragelinin oo aan laga hadal family qaar baa waxay soo dhigayaan gurigoodii iyo qolalkii intuu ka koobnaa sida u dhaqmayaan hurdadii jiifkii wixii lagu dul sameynayay wixii lagu qarinayay halka barefadka oo dhan laga hadlaya oo baraha bulshada la keenaya ogow inaad adiga iyo xayawaanka baraha maxay ahayd aan ku arkayno meelaha banaanada ee banaanada isku booday isku fuulay ku dhaqme ee maxay ahayd daaqa iyaduna isku mid tihiin markaad soo bandhigayso hooyigaaga iyo baradaadii iyo gubashaaga wixii ku barafadka ahaa iyo noloshii lagu talagalay inay khaas ahaato markaad banaanka keenayso adiga iyo xoolaha xayawaanka dameerka maxay ahayd toole awrka rida irgaca halka isku boodaya inaad isku mid tihiin ogow taano oo sidoo noo sheegtay diinteena macaan ee wanaagsan iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ina faray inaynu ka digtoonaano uu yiri qofka ka sheekeynaya wixii isaga xaaskiisa guushiisa ku dhex maray ee banaanka keenaya wuxuu la mid yahay ay toolay laba shaydaan oo banaankaas ku fuulay kale taas weyn ogsaanano qodobka qaaysi raacintaana qodobka ka bixin ee soo saddexaad noqonaya wuxuu noqonayaa nolosha family-gu marka ay kala tagaan ama isfuraan ama noloshii ay ka dhaxaysay halka ku soo gabagaboodo labadii qof ee kala tagay midba dacalkiisu carow ku qaadanaya midba boom buu afuufaya gaar ah sidoo meel baan isla taagaya kii kale wax ka sheegaya qofka nolol baan soo dhex martay wanaagga jacayl kalgacayl iyo ubadiyo wax baan soo dhex maray oo riyo soo jeedada ahaydeen inaad wax ka sheegto iska daayay inaad hadalkaaga afkaagu soo mara wax xun ayaa madnooc reeban adiguna sidii qof aad cadow isku ahaydeen oo haysaan oo gaal iyo muslim saaya aad tihiin ayaad boom qaadato carow ka tumaysaa meelaha sidii afuufaysaa qodobkaas waa qodob aad muhiim ah bariyahan bulshada aad ugu dhex jiraa bariyahan dambe aad ugu soo kordhaya wax kalena ma aha waa qofkii oo maskaxdiisa iyo caqligiisa korin oo isagoo yar oo caruur intuu guursaday kadib markuu guurkii ka burburay noloshii aan wax ka fahansanay oo caqligiisa aan dhameystiran oo wax maxaa ka dhalan karaa iyo waxaan ku eegyahay aan midna garanhayn ayuu dabeeto sidoo doon qofku baahaya
taa waxaynu ku baraarujinaynaa dhammaan caruurteena iyo dhallinyaradeena iyo waalidkeena inaynu ka digtoonaano aynu wax isu sheega aad ugu maxay talada u badsano oo labada qof markay kala tagaan noloshooda dhamaato dee dadnimadoodii kale iyo waxoodii kasoo dhex maray tacaamulkoodii muu dhammaanin dee inaad ka sheekayso wixii ceeba uu lahaa sayskaagu ama waxay zawjadaadu ceeba lahayd iyo oridaadu inaad ka sheekayso iyo wixii dhex maray aad banaanka keentaa waa qodob aad iyo aad oo maxay tahay liita oo baktinimo ah qodobka kale afraad aan qodobka ka dabageyn lahaa wuxuu yahay dhalinyarada aan maxay tahay lamaanaha ahayn ee baraha bulshada ku dhex jira ee odhanaya waanu isjecelnahay baraha bulshada kusoo bandhigaya jacaylkooda iyo xidhiirkooda ee la ogaanayo ee maanta yara kala maqnaadaan ee laga soo arki waayo baraha bulshada la odhanaya maanta may soo wada gelin maxay tahay way isku dhaceen dhexdooda waxbaa yaalla ee laga warhaynayo inaad ka diisaan oo wixii adiga jacayl iyo nolol iyo xiriir iyo maxay tahay mustaqbalka wada hadal idinka dhaxeeya u gaar idin ahaado ee baraha bulshada aanu ku dhex jiro kuna milmin marka maanta ka soo wada fadhidan aad garabka saaraysan dhinaca isku haysan aad xamid iyo gacal iyo nolosheeda iyo nafteeda ay haysan dee waxaad arkaa intaas oo qof oo kala wada duwan faamigiina baad arkaya dadkii asxaabtiina baad arkaya beride hadaad ku yara dhacdaan waxa la odhanayaa war waa labadii oo isku dhaceen oo wixii haddaa xitaa yar kala maqnaataan meel qaar soo wada geli weydaan oo dee duruufo idin saamixi waayaan waxa la odhanayaa isku dhacsan yahay beriyahan dambe is hayaan iyadana ha laga daayo oo nolosha maxay tahay sideeda ha loo wajaho qodobo kale oo fara badan oo xaqiiqo ah oo maxay tahay qaar murug leh iyo qaar laga naxo leh ayaynu iyagana bal faaqidi doonaa ee kanaalka inuu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.